gabadhan oo jirta 22 sano ayaa magac weyn ka samaysay caalamka oo dhan kadib toddobaadyo mudaharaadyo ay ka socdeen waddankaasi SUDAN kuwaasi oo looga soo horjeeday madaxweynihii maanta iscasilay Umar al-Bashir. Alaa SALAH ayaa sawirada iyo muuqaaladeeda waxa ay isticmaalayeen warbaahinta caalamka waxayna door muhiim ah ka ciyaartay kicinta ardayda jaamacadaha gabdhaha iyo dhalinyarada SUDAN si ay uga soo mid noqdaan barnaamijyada looga soo horjeeday madaxweyne Umar al-Bashir oo 30 sano dalkaasi xukumayay. gabadhan ayaa ah ardayad ka barata jaamacadda caalamiga ah ee Khartoum cilmiga injineeriga waana codkar awood u leh kicinta iyo hanashada dadka kale. intii ay socdeen mudaharaadyadii ka socday waddanka SUDAN, Alaa SALAH waxay hadallo qeyraysan isla markaasina kicinaya dadka SUDAN ay ka soo jeedinaysay goobaha ay dibadbaxyadu isugu soo baxayeen. maray warbaahinta la hadashay gabadhan yar waxa ay sheegtay inaysan hal maalin ka nasan dibadbaxyadii dalkaasi ka socday. sawiradeeda iyo muuqaaladeeda oo qabsaday baraha bulshada ayaa waxaa ka dhashay in militariga dalkaasi SUDAN ee daacadda u ahaa Umar al-Bashir ay ugu hanjabaan dil gabadhan. Alaa SALAH waxa ay sheegtay in kicinta dadka SUDAN si ay u sii xoojiso ay adeegsanaysay heese wadani ah iyo gabayo dhammaantood ka hadlaya kacdoonka ka dhanka ah madaxweyne Umar al-Bashir. ugu dambeynna waxaa hirgalay rabitaankii Alaa SALAH iyo guud ahaanba inta badan shacabka SUDAN. Axmed Shumari, Ariel TV, Hargeysa.